Mid ka mid ah culimmada ayaa wuxuu ka sheekeeyay qiso cajiib ah. Wuxuu dhahay magaalada Xalab ee dalka Suuriya ku taala waxaa ku noolaa nin tumaal ah oo dadku ugu iman jireen inuu Alle u baryo. Wuxuu ahaa nin cajiib ah oo qofkii uu Alle u tuuga markiiba ducadiisa waa la aqbali jiray. Waan yaabna ayuu yidhi shiikhii, kadib buu safar u soo galay, wuxuuna u yimid ninkii tumaalka ahaa si uu uga waraysto sirta ka dambeysa in duco walba si dhaqsi ah uu Alle uga aqbalo. Ninkii tumaalka ahaa wuxuu dhahay, horta arrintan waan qarin jiray, balse maadaama aad shiikh tahay, waan kuu sheegayaa si aad magacayga iyo magaca sawjadayda ama xaaskayga aad u qariso. Wuxuu yidhi, xaas baan guursaday, si wanaagsan baan reerkeeda uga doontay. Habeenkii aan aqal galnay ayaan ogaaday inay leedahay uur xaaraan ah, weliba 7 bilood ah. Markaasaan fajace ayuu yidhi, tala ayaa igu caddaatay. Bal maxaad samaysaa? Ma subaxa intaan waagu baryin ayaad furtaa, mise waaga ayaad la sugtaa? Wax aan sameeyay ayaan garan waayey. Waan rogrogay, salaad baan iska galay, waan iska ducaystay. Kadib waxaa igu soo dhacday, waa intaasoo Ilaahay toosiyaa, qofkana mar wuu dambaabi karaaye, bal isdejiyo aayar u kaadi. Kadib waan iska dukaday, waxaana u dhaqmay sidii inaanay waxba jirin oo kale. Dhowr habeen kadib ayaa xaaskii ii timid iyadoo murugaysan, say tiri dembi noocaas ayaan galay, Ilaahayna waa uga toobad keenay, ilmahanna xaaraan buu ku calool galay, ee ceebtayda astur, Ilaahay taada ha asturee. Waxaan ku idhi, waayahay, waan ku asturayaaye mid iga ballanqaad inaad dariiqa dhabta ah ku dabaqaysa inta noloshaada ka dhiman. Waa ballan ayay tiri. Muddo kadib gabadhii xilligii ay umuli lahayd ayaa la gaaray, waxaana tuulo fog uga keenay oo ka umulisay gabar aan iyada aqoon, anigana aqoon ii lahayn. Kadib ilmihii yaraa ay dhashay ayaan soo qaaday salaadii subax markii saas loo galay. Hareeraha intaan iska eega ayaan kadinka masaajidka dhinac dhigay, salaadii baana iska galay. Salaadii baan ku yara raagay, markii laga baxay oo dadkii ugu horreeyay bannaanka u soo baxeen ayaan mar keliya maqlay qayle iyo sawaxan dibadda ka imaanaya. Ilmo yaroo lasoo tuuray ayaa halkan yaallo, alla waa ilmo hadda dhashay, alla. Qof aan waxba ogeyn baan iska dhigay oo bannaanka u soo baxay. Kadib ayaan weydiiyey, yaa dhalay? Wax dhalay lama yaqaan ayaa lay dhahay. Kadib baan dhahay, shiikh, aniga ma iigu ducaynaysaan? Anigaa haysan doona oo korin doona. Mar keliya ayaa haa lay dhahay, waana la iigu duceeyey. Kadib baan ilmihii yaraa saldhigga iyo maxkamadda u qaadnay oo aan isku soo qornay, oo hooyadii ayaa dib loogu soo celiyey iyadoon cidna fahmin. Sidii baan u wada noolayn, u ilaalinayay oo u xanaanaynayay. Gabadhii wuxuu Ilaahayna kala siiyey ilmo fara badan, anigana wuxuu Ilaahay fadligiisa iga dhigay mid wixii uu Alla weydiisto ama ka barya si dhaqsi leh u helaa. Haddaba muxuu ninkaasi ku gaaray heerkaas? Waa asturaadda iyo islaaxinta iyo hagaajinta. Haddii uu qofku dembi ka dhaco oo uu Ilaahay u soo laabto, waa in la asturo lana hagaajiyo. Qisadan walaalaha kala gaarsii si ay uga cibro qaataan. Ramadaan mubaarak.